halgamaa ay Itoobiya dagaalkii 77 asagoo dhaawac ah ku qabatay kadibna ay god ku riday oo 12 sano asagoo dhaawac ah godkaas ku jiray kadibna nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo maxaabiistii ay Soomaaliya iyo Itoobiya isdhaafsanayeen 12 sano kadib hortiisa ayay Itoobiya ku daldaleen 75 ka mid ah maxaabiistii ay dagaalka ku soo qabteen qiso gaar ah ayuu leeyahay Cismaan Raadiye waxa uu dagaalka aaday asagoo xaas iyo hal gabar ay u joogaan dagaalkiina wuxuu ka soo laabtay xaaskiisii oo nin kala qabo oo 6 caruur ah u dhashay laakiin ujeedka aan hadda muuqaalkan u soo qaatay ma ahan waxyaabahaas aan ka soo sheekeeyay inta aan gudaha u galin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto oo uu noqdo muuqaalkii ugu like-ta badnaa sidoo kalena aad sii share garaydo oo aad saaxiibada oo dhan la wadaagto Cismaan Raadiye waxa uu askarta qortay sanadii 1976 asagoo wax aan sanad dhammayn ba askari ah oo uu wali tababar u socdo ayuu bilowday dagaalkii 77 sanadii 1977 wuxuuna ka mid ahaa askartii joogtii ugu horreeyay Itoobiya gaarsiiday oo dagaalka bilowday sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa maxaabiistii ugu horreeyay oo Itoobiyaanka u gacan galay wuxuu sheegay inay isku mar qabteen asaga iyo nin Carab ah oo dhaqtar u ahaa askarta Soomaalida ninkii Carabka ahaa halkii ayay ku dileen asagana hore ayay u sii wateen god ayay ku rideen asagoo dhaawac wax daryeel iyo gurmad caafimaad ahna ma uusan helin sanado badan markii uu dhacaankiisu qubmiyay dhaawici ayaa iska qalalay oo dar Ilaahay ayuu u bogsaday muddo 12 sano ah ayayna asaga iyo 17 rag ah oo kale oo lugaha iyo gacmaha badankoodu ay ka go'naayeen ku jireen godkaas ugu dambeyn dad jamhad ahaa oo dhowr boqol gaarayay oo sanadihii dambe ay soo qabteen Itoobiya dhammaantood waxa laga soo daayay Itoobiya sanadii 1989 xilligaasna waxa soo dhaweeyay madaxweynihii dawladda kacaanka oo xilligaas burbur ku sii socotay si wanaagsan ayuuna sheegay inuu u soo dhaweeyay madaxweynuhu Cismaan Raadiye ujeedadii muuqaalkan aan u soo qaadanay halkan ayuu ka bilaabanayaa muuqaalka like saaro si share garay ninkan asagoo dhalinyaro ah oo bilowgiisii askarinimo ku jira ayaa dagaalkii ugu horreeyay lagu qafaashay sanado badan oo dhib iyo rafaad iyo xabsi uu ku jiray kadib Siyaad Barre muxuu ku amaal mariyay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waa uu dalacsiiyay askarigan darajo sare ayaana la siiyay isbatooro buuxa ayaa laga dhigay sidoo kale asaga iyo raggii maxaabiista ahaa oo la socdayba waxa magaalada Muqdisho laga siiyay nin walbaba boos sabarloogiisa gacanta laga saaray madaxweynuhu shaqaalihii kacaanka ayuu ku amray inay dhulkaas u xaaqaan raggan maxaabiista ahaa sidoo kalena duqi magaalada Muqdisho ayuu ku amray inuu nin walbaba boos siiyo sabarloog sharciyeysan oo madaxweyne saxiixayna gacanta ayaa laga saaray Cismaan Raadiye hadda waa nin oday ah oo danyar ah dhulkii uu sharciga u lahaa wuxuu ku yaalaa Tareedisho dalkii uu 12 sano godka ugu jiray asagoo dhaawac ah halkii boos oo laga siiyay oo uu sharciga u lahaa rag ayaa hadda sharci darro ku haysta xoog ku haysta wuxuuna ka mid yahay dhulalka uu Xasan Sheekh Maxamuud xaaqanayo kadibna uu ganacsatada ka iibsanayo oo uu kaambeynka ku galayo miyuusan xaq u lahayn Cismaan Raadiye inuu dhulkiisa dib u helo